inaan bilowno inaan la qaybsanno ciidamadeenna oon dhahno geeshkayagow garabkiinaan taagannahay geeshkayagow guulaysta annaga saasaan u soo baxnay afurka marka meel kastoo ciidamada joogaan caawaan bilownay xukuumadda waa nala ku amray waa fulinaynaa waa ku dhiiranaynaa in fursadda ilaahna siiyey inaan ku afurno ciidamadeenna qalabka sidoo aan la afurno aan ku afurno meel bannaan ah saan hore u ballanqaadnay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha hore u ballanqaadeen inaan guryaha ku jiri doonin aan ciidamada la qaybsano dhibkay qabaan marka balanta waa ka soo baxnay allah waxaan ka baryaynaa inta dham ilaah nagu waafajiyo wasiiraddeena way mahadsan tahay Khadiija Maxamed Deere sidoo kale wasiir ku-xigeenka Axmed Cumar Sala uu mahadsan yahay ee Afurka noo soo sameeyeen maanta aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa mudan ra'iisul wasaare saan hore u ballanqaadnaa amniga markaan ka shaqeyno guryaheena joogi doono waa naga dhab waa naga balan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo la hadlay askarta ula afray ayaa tilmaamay in xukuumadda ay ka go'an tahay dhiirigelinta iyo sare u qaadista moraalka ciidanka si ay ugu guuleystaan xasilinta amniga guud ee dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho waxaan aad ugu faraxsanahay inaan caawa idin nimid oo idin la afurnay in iyadoo ay Ramadaan tahay oo aad ogtihiin taariikhda magaalada Muqdisho aan jidadka magaalada Muqdisho banaanka meel kamid ah aan ku afurayno annagoo madaxda qaranka ah waa runtii wax Ilaahay loogu mahadnaqo shacabka Soomaaliyeed fadlan la shaqeeya ciidamada qalabka sida soo sheega meeshii aad wax ka dareentaan ciidamadana waxaan leeyahay amniga waxaad u sugaysaan waa dadkiina waa shacabkiina marka aad shacabka guryahooda tageysaan aad ha loo ixtiraamo laakiin dadka Soomaaliyeed kulligeen waxaa nagu waajiba inaan jid walba u soo baxno inaan ciidamada la afurno inaan garab istaagno inaan markay socdaan biyaha iyo caanaha ka daba qaadno sababtoo ah amni la'aan waa horumar la'aan